gudida gacanta ku haysa dhismaha masaajidka deegaanka Horufadhi ee gobolka Cayn ayaa ka warbixiyay halka masaajidka haatan dhismihiisu marayo masaajidka oo in muddo ka soconay deegaankaas sidoo kale waxaan deeq lacag gaarsiiyay gudida dhismaha ku haysa masaajidkaasi deegaanka Horufadhi gudida gacanta ku haysa dhismaha masaajidka waxay baaq u dareen guud ahaan ummadda islaamka meel joogan in laga soo caawiyo sidii loo dhameystir lahaa masaajidka soo haatan u baahan kaliya oo ah marmar masaajidkaasi la dhigo iyo waliba safeetadii oo haatan baahi weyn masaajidka u qabo maanta waa Meel Wacan Maraya masaajidka hadda waxa uu hadhay kaliya in la dhigo marmar Google masaajidkii waa bila safeeto soo aragtaa laakiin masaajidkiisa waa u dhamaaday oo hawshiisa masaajidka way dhamaatay laakiin baahida ugu daran waa gogoshii iyo waxa la yiraahdo safeetadii hadaan la Google helay safeeto la helay masaajidkii aan Google ugu tukay helin masaajidka ma dhamaan waa labadii ugu darnayd dhinaca kale waxaan rabaa inaan uga mahad celino masaajidka lacag soo gaarsiiyay runtii waxaan halkan uga mahad celinayaa gabadh la yiraahdo Xaliimo Nuur Cali Ilaahay ha barakeeyo waxay joogtaa wadanka dibadiisa lacagtan iyada dhowr masaajidka u soo ururisay mar hore iyo saddex jeer horena dhowr jeer hore masaajidka lacag bay u soo ururisay Ilaahay awlaadda ha barakeeyo Ilaahay xooggeeda ha barakeeyo Ilaahay maalkeeda ha barakeeyo Ilaahay xaajkeeda ha barakeeyo lacagta in soo gaarsiisay Xaliimo Nuur Cali qofka ugu horeeyay waxa weeye Asma Bashiir Cali $300 Caasha Ibraahim $100 Barlin Cali $50 Amina Ahmed Isxaaq $50 Bintu $60 Xaliimo Nuur Cali $100 dadkaasi waxay joogaan wadanka dibadiisa dalka Mareykanka qaar awlaad baa ka xanuunsanaysa qaar caruur baa ka xanuunsanaysa qaar iyaga xanuunsanaya ducooyin kala duwan bay dalbanayaan oo dad badan baa ka xanuunsanaya culimadaas si gaar ah dadka ugu ducayn doonta totalka lacagtaasna soo gaadhay waxa weeye $680 gabadhaasna soo gaarsiisay masaajidka laga shaqeeyay oo hawshiisa loogu qabtay waxaan halkan rabaa inaan idin uga mahad celiyo Barlin jaamac Dubad oo runtii masaajidka hore uga qayb qaadatay dhistayna barkada masaajidkan hadda laga cabo Barlinay ilaa khara ku siiyo waxa loo baahan yahay walaal islaamka looga baahan yahay war inta ay nagu hadhay masaajidka inta ku hadhay marmarka iyo minaaradda in la soo dhameystiro waxaan u dhibayaa odayaasha kale gudida waxaan imika idinka codsanaynaa masaajidka hadaan nahay degmada Horufadhi ee Buuhoodle ka tirsan masaajidka wuxuu u baahan yahay dambe inaad sanbaraacsan idinkan wixii aad hore u geysateen jazakallahu khayr ilaahay idinka dhigo wixii buka caafimaad alla siiyo wixii aakhir dambe dhaaf doonayana alla siiyo wixii hadii alla ilaahay darajo doonayana ilaahay siiyo yaanu hadaan nahay degmada Horufadhi odayaal iyo culimo iyo gudiba ka kooban waxaan idinku ducaynaynaa in darajo wacan alla idin siiyo Xaliimo Nuur Cali waxaan ugu soo khaas ahaan u sii waxaynaa ilaahay dambigeeda inuu dhaafo muraadkiisana ay leedahayna meesha ka bugta alla ka bogsiyo caruurta ka xanuunsanaysa ilaahay waxaan u baryaynaa in caafimaad sharci alla ugu bedelo wixii ay hore u qabatayna waxa way jazakallahu khayr ilaahay uga dhigo waxa dambeena ayaan ka caajisin masaajidkaasi aad iyo aad ay u hawshooto ilaahayna waxaan uga baryaynaa caafimaad wixii ka buka in alla ku caafiyo wixii kale haddana waxaan u baahanahay safeeto goob marmarkii iyo safeetadii labadaas imika ya aad iyo aad nimaka uu qabiya ugu haysan yahay wixii kale soo dhameystira aakhiri adduunkiina laba soo shaqeeya waxaan dhammaan salaamayaa dadka muslimiinta ah waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh masaajidkii maalintii u horeysay isagoo bannaan aanu idin tusnay dadkii ilaahay dartii wax u gashado nala daawada galabta sida uu yahay masaajidkii waxaanu ilaahay idinka baryaynaa waxaad u soo dirteen guriga ilaahay baad wax ku darsateen inuu ilaahay gurigeennana uu waxa uu u jecel yahay idinku daro waxa aad ka bugtaan ee u baahan tihiin wax ka badan baa ilaahay bixiyaayo wanaagii ilaahay ha idinku jazaa mariyo taa markaan ka imaado masaajidka galabta wariyuhu wuxuu noo keenay $660 $80 cali lecture ayuu noo keenay culimada lagu wareejinayay oo wixii masaajidka wax loo siimay wixii kale culimada lagu wareejiyay oo marmarkii iyo baan noo dhiman iyo safiitadii iyo gogoshii intaas noo dhiman waa sadaqada jaariga ah aan marnaba macnaheedu inta uu masaajidkaasi dhisan yahay idin soconaysa ilaahay dharaarta qiyaamaha idinku samata bixiyo
ilaahay dharaarta qiyaamaha idinku badbaadiyo aakhira iyo adduun ba ilaahay idinku badbaadiyo wax yar iyo wax badan wixii masaajidka gashado ilaahay waxaanu ka baryaynaa ilaahay isagaa baryada aqbala isagaa alla yidhi barya ilaahay baa dartii wuxu bixiseen ilaahay waxaanu ka baryaynaa wax ilaahay uu idin siiyey oo wanaagiisu badan yahay inuu ilaahay idin siiyo kuwa dadka xanuunsanaya haya ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu ilaahay caafimaadka isagaa si fudud bixiyo caafimaad fudud ilaahay idin siiyo waalidka iyo caruurta iyo kuwa awlaadda doonaya kuwa dadku ka xilxilan yahay kuwa caruurtu ka bugto kuwa macnihii odaygu ka buko gabadha bugta waxa laala wixii masaajidka wuxuu qabtay ilaahay waa inuu wax idin qabtaa xaliimo nuur cali waa gabadhaasi iyo kuwa kaleba ilaahay waxaanu u baryaynaa bugtada aad leedin in ilaahay idinka gooyo oo wanaag idinku masaajidka hore iyo dib buu soo caawiyay ee wax gashaday waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan kale uga gudbayaa oo u sii ducaynaynaa xaliimo nuur cali oo aad uga shaqaysay waa u ducaynaynaa ilaahay waxaanu u baryaynaa labada daarood bayna ka liibaanto ilaahay waxaanu uga baryaynaa aakhiriya adduun bay labada daarood ka liibaanto wixii buka Allah caafiyo wixii ka buka Allah caafiyo aakhiriya iftiinka ilaahay asturo yaanu ugu ducaynaynaa